Welcome to Boleo Media and subscribe. bal niyad furan waji furan ku soo dhawow baan ku leenahay inta kadib madaxweyne dadku markaan u sheegnay nidhi waa inoo imanaya madaxweynihii wayba naga aamini waayeen sababtoo ah umay baranin nin madaxweyne intuu yimaado wax weydiiyaba umayna baran sida fiican niyad samida aad dadka u soo booqatay ee xaalkooda inaad ogaato aad u doonayso ayaan aad iyo aad kugu mahadnaqaynaa anigoo ku hadlaya magaca beesha howla qaasim ayaa waxaan kugu soo dhawaynaynaa si niyada oo qalbi saafi ah oo sugan ayaan madaxweyne kugu soo dhawaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaan ku leenahay baahida bulshada ay u baahan tahay koow waxaa ka mida biyaha caafimaadka waxbarashada iyo horumarinta dawladeed inay wax ka helaan saami qaybsiga hadday noqoto maalgelinta hadday noqoto maamulka magaalada hadday noqoto wasiir ku-xigeenada heer kelel hadday noqoto agaasinada mudana madaxweyne bulshadu baahi weyn ba u qabtaa mudana madaxweyne intaasoo baahi oon qabno waxaan kaa codsanaynaa inaad baahidayada wax ka qabato halkaasaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa wabilaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo jidka iyo biyaha intii nolosha daruuriga u ahayd bay bulshadani aad uga baahan tahay mudane madaxweyne marka waxaan kaa codsanaynaa inaad wax ka qabato aad baanan kuu salaamaya mudane madaxweyne assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku idhi madaxweynaha maanta u yimid ee soo dhex fadhiistay dhexdoodii waxaan ku idhi adigana waxaan kuu ducaynayaa dalkii ciidda ku talay aqoonyahaankii dalkaad ahayd walaalkay oo dadka haddaad wax u qabato xagga alle aad wax ka heli dadkaa wax u qabo walaal asalaamu calaykum waraxmatullah mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay ku soo dhawow carradaadii dadkaagii iyo dalkaagii imaqashiya mooraalka madaxweynaha sacab madaxweynuhu waa uu mahadsan yahay siday suldaamadii iyo dhammaan dadkii iga horreeyey hadlay ay usoo dhigeen weeyaan waxa weeye ma jirin bal niyad furan waji furan ku soo dhawow baan ku leenahay intaa kadib madaxweyne dadku markaan u sheegnay nidhi waa inoo imanaya madaxweynihii wayba naga aamini waayeen sababtoo ah umay baranin nin madaxweyne intuu yimaado wax weydiiyaba umayna baran sida fiican niyad samida aad dadka u soo booqatay ee xaalkooda inaad ogaato aad u doonayso ayaan aad iyo aad kugu mahadnaqaynaa anigoo ku hadlaya magaca beesha howla qaasim ayaa waxaan kugu soo dhawaynaynaa si niyada oo qalbi saafi ah oo sugan ayaan madaxweyne kugu soo dhawaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaan ku leenahay baahida bulshada ay u baahan tahay koow waxaa ka mida biyaha caafimaadka waxbarashada iyo horumarinta dawladeed inay wax ka helaan saami qaybsiga hadday noqoto maalgelinta hadday noqoto maamulka magaalada hadday noqoto wasiir ku-xigeenada heer kelel hadday noqoto agaasinada mudana madaxweyne bulshadu baahi weyn ba u qabtaa mudane madaxweyne intaasoo baahi oon qabno waxaan kaa codsanaynaa inaad baahidayada wax ka qabato halka
halkaasaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa wabilaahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. iyo jidka iyo biyaha intii nolosha daruuriga u ahayd bay bulshadani aad uga baahan tahay mudane madaxweyne. marka waxaan kaa codsanaynaa inaad wax ka qabato. aad baanan kuu salaamaya mudane madaxweyne. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ku idhi madaxweynaha maanta u yimid ee soo dhex fadhiistay dhexdoodii waxaan ku idhi adigana waan kuu ducaynayaa dalkii ciiddaa ku talay aqoonyahaankii dalkaad ahayd walaalkay oo dadka haddaad wax u qabato xagga alle aad wax ka heli dadkaa wax u qabo walaal. asalaamu calaykum waraxmatullah. mudane madaxweyne waxaan kuleeyahay ku soo dhawow carradaadii dadkaagii iyo dalkaagii imaqashiya mooraalka madaxweynaha sacab. madaxweynuhu waa uu mahadsan yahay siday suldaamadii iyo dhammaan dadkii iga horreeyey hadlay ay usoo dhigeen weeyaan. waxa weeye ma jirin aad baahidayada wax ka qabato. halkaasaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa wabilaahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. iyo jidka iyo biyaha intii nolosha daruuriga u ahayd bay bulshadani aad uga baahan tahay mudane madaxweyne. marka waxaan kaa codsanaynaa inaad wax ka qabato. aad baanan kuu salaamaya mudane madaxweyne. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ku idhi madaxweynaha maanta u yimid ee soo dhex fadhiistay dhexdoodii waxaan ku idhi adigana waan kuu ducaynayaa dalkii ciiddaa ku talay aqoonyahaankii dalkaad ahayd walaalkay oo dadka haddaad wax u qabato xagga alle aad wax ka heli dadkaa wax u qabo walaal. asalaamu calaykum waraxmatullah. mudane madaxweyne waxaan kuleeyahay ku soo dhawow carradaadii dadkaagii iyo dalkaagii imaqashiya mooraalka madaxweynaha sacab. madaxweynuhu waa uu mahadsan yahay siday suldaamadii iyo dhammaan dadkii iga horreeyey hadlay ay usoo dhigeen weeyaan. waxa weeye ma jirin madaxweyne ka horreeyey oo intuu yimiday bal beeshan dadkan iyo carradan bal soo boqo xataa kormeer kumar dhulkan bannaan yaa dega xataa ismayna weydiinin. waxaan leeyahay mudane madaxweyne waa mid ku taalla oo taariikh beel dahaba ku qoran weeyaan maanta ee dhinacaaga nooga soo qorayaan. dalno oo si xornimo loo hadalno oon afkaarteena iyo oraahdeena sheegano. mudane madaxweyne midaan adigaa ka abbaah ee ogow baan kuleeyahay deegaanka sidiisaba qofka bini-aadanka ilaahay waxau siiye waa xornimo aadantinimo bini-aadannimo. xornimada aan ku hadlaynahay waa mid kaa timiday mudane madaxweyne. abaal gaara iyo mid gaara baad ka kasbatay shacabka deegaanka baan leeyahay. cuurtayda iyo dareenkayga maaha midaan soo koobi karo. sababtu waxay tahay madaxweynihii baa hor fadhiya. madaxweynuhuna waa madaxweyne cadaaladeed. bismillahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan saaka idinla joogo oo waa in muddo gaaban oo aad u gaaban lagu soo gebagabeeyo dadkanna maarata ay ka nastaan caafimaad darrada ka haysata xeradhiigta. marka taas waxaan samaynaynaa dabagal deg dega inaan samayno annaga iyo dowladda hoose iyo xafiiskii ay khusaysay oo si dhaqsaa looga gudbo weeyaan. waxaa kaloon ognahay in aaggaas xeradhiigta agagaarkiisa dadka ku nool iyo xaafadahanba iskuul ahaan iskuulka ugu dhow yahay ama wanow ama xuseen giire oo iyaga laftigooda halkaa iskuul uga baahnaan lahaayeenba si carruurta ay wax ugu barato. marka baayaha noocaasa inaan qorno guddiga beesha iyo maamulka magaalada iyo annagu aan iska kaashanno weeyaan. waa isku noqonaynaa haddii aan la yidhaha kolley annagoo soo marnay farimaha guddiga iyo suldaanka iyo wixii aanu go'aaminay waa idiin sii sheegi doonaa haddii aan la yidhaha arrimaha la xidhiidha nooca oo iyaga laftigooda halkaa iskuul uga baahnaan lahaayeenba si carruurta ay wax ugu barato. marka baayaha noocaasa inaan qorno guddiga beesha iyo maamulka magaalada iyo annagu aan iska kaashanno weeyaan. waa isku noqonaynaa haddii aan la yidhaha kolley annagoo soo marnay farimaha guddiga iyo suldaanka iyo wixii aanu go'aaminay waa idiin sii sheegi doonaa haddii aan la yidhaha arrimaha la xidhiidha noocaasa laftigooda dib baan isugu noqonaynaa waan soo tashanaynaa iyagana wixii aan qaban karno o dhan waan samayn doonaa. waxaan jecelahay in uga faa'iidaysto fursaddan arrintii uu ka hadlay jeex oo ahayd arrinta ku saabsan soomaalida guud ahaan deegaanka dulmi caama oo haysta baa jira annagana beel ahaan dulmi gaara oo na sii haysta baa jiray buu ka hadlay. waa arrin xaqiiqa oon dafaraad lahayn kulligaan aan ognahay. waxaan odhan karnaa takoorka iyo haybsooca lagu hayay beeshan iyo beelaha lamida ee ku nool meelo fara badan oo ka mid a deegaanka waxa weeye waa cambaar ku taalla damiirka soomaalinimada.
وعمبار كتار دميرك الصومالي لماذا وعيب إنها هيسته ويان وهو أن دخسان لوجا قدبو لكن حقائق جرنا إن تصيان إن برشة نيسي أيارتها وقبح اللو بهاي تطور أما يسبدل إن عوح برشة إن عدقالها إن عرقتها إنه يمادو إن والبا تاسان ربنا إن نقنتنو لكن أنه حكومنا وأنا أغنى إن برشة قار الله استينكر دباتها إن جرين ميل والبا مركي دباتها دعضو cid walba in xun oo ka qayb qaadatana way leedahay in fiican oo arinta ka hortagtana way leedahay marka lama oran karo beer heble ayaa waxaas ka mas'uul lama oran karo ama beesha aan noqoto ama beelaha kale ee magaalada ku nool ee Soomaaliya ha noqdaan midna si gaar ah looguma tilmaami karo waxaan u baahanahay in aan dadka xumaanta wada oo cid walba leh aan iska qabanno dadka samaha iyo nabadgelyada ka shaqeynayana aan taageero u baahanahay mooyee xilli iminka la isku madaxa la isu saarayo beel wax loo saaraya ma jirto haba yaraatee ويان وحي تبشويني عبشويني لكن ويكيني كران إن يرتع كغيب قاتان دباتوين كذا تانا يرتع حانو كرات بدار منا كوانينا إن نفتو ذا يو نفت تدك كلبا أي بالباديان أو عبشوين كيتران أي وقادان إني نكجبح كرين فوضى يبوق عبشوين كتير وحلا جبح كرات دجنانشو